haddii ay Puntland noqon lahayd dal madax bannaan caasimadiisu waxa loo cumaamadi lahaa Garowe waxayna taariikhda dawladnimada Puntland ka bilaami lahayd 1998 markii Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu ku dhawaaqay ismaamulka Puntland. Dalka Puntland waxa ku noolaan lahaa 4,334,633 qof sida ku cad tirakoobkii la sameeyay 2016. Juqraafi ahaan dhanka galbeed waxay xuduud kala yeelan lahayd dawladda Somaliland, waqooyigana gacanka cadmeed, koonfur barina waxay ka soo rogmi lahayd badweynta India, koonfur qumanna waxay xuduud la wadaagi lahayd maamulka Galmudug, koonfur galbeedna waxay xad kala yeelan lahayd dawladda ayagoo dhan liqi doonta ee Ethiopia. Puntland waxay caan ku noqon lahayd darafayn oo waxa ku ooli lahaa cirifyo ay ka mid yihiin Cape Gardafu oo ah cirifka u xageeya geeska Afrika, Ras Xafuun oo ah meesha aan bari ka dambeyn guud ahaan qaaradda Afrika, iyo bilowga buuraleyda Karkaar. Magaalada u weyn dawladda Puntland waxay noqon lahayd Boosaaso, badduleeddan 212,510 square kilometer ayuu noqon lahaa dhulka ay Puntland ku fadhido, waxayna ka weynaan lahayd in ka badan 25 dal oo adduunka ka mid ah. Puntland waxay la kulmi lahayd dagaal sokeeye, burbur dhaqaale, gumaysi cusub oo Ethiopia uga yimaada, dhibaatooyin amni, muran xadeed iyo maamul xumo ballaaran oo ka dhalanaysa qabaa'ilka wadadaga deegaankaas.